الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه المنير إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu haduu ilaahay yira waqafaat ama istultaagay dhowra aan istultaagi doona haduu ilaahay yira taariikhdii udgoonayd waxa weeye islaamka soo martay waliba ku suntanayd ama ahayd taariikhdii taariikhul Andalus ama dhulkii la oran jiray Andalus taariikhdiisii islaamkii wax dhacdooyinkii ku soo maray. gaar ahaan waxaanu haduu ilaahay yira dhacdadan ama istultaagan aynu si gaar uga hadli doonaa furashadii iyo qaabkii muslimiintu ay u furteen dhulkii la oran jiray Andalus. waxa isweydiin mudan ama haboon inuu ku bilowno taariikhda Andalus maxaa loo diraaseynaya oo ka farcamaysa su'aasha guud ee sideedaba taariikh maxaa loo diraaseeyaa. Andalus muslimku waxa ku soo martay taariikh aad u dheer oo lagu qiyaaso 8 qarni ama 800 sano iyo 5 sano ka bilaabmaysay sanadkii 290 hijriyada ilaa iyo sanadkii 711 hijriyada. muddada aad ka u dheer ee taariikhda islaamka kamidka ee moodo inaan sideedii loo diraasayn ama sidii la rabay inaan loo danayn marka laga hadlayo taariikhda islaamka waxa ku duugan ama ku dhex jira dhacdooyin aad u kala muhiima oo aad u kala duwan oo islaamka soo martay. xaaladda islaamka iyo dadkiisu ay dhulka yaaleen, dhacdooyin ama xilliyo islaamka iyo dadkiisu ay kor joogeen horumar iyo nahdo iyo waxa weeye banaade ay waxa weeye meel wacan u maraayeen, xilli ay waxa weeye dhulka kale jaarka furanayeen iyo xilliyo kale oo iyaguba duulaanada shisheeyuhu ku soo qaadayo haba yaraatee aanay iska dhicin karin ama aan iska difaaci karin. waa xiqbo ama xilli ku haboon dadka maanta jooga ee islaamka dhulalka ama dalalka kala duwan ee islaamka ku aftirsadaba ha joogaan meesha doonaane inay cibrooyin iyo tusaalayn iyo diraasooyin badan ay u huraan waqti badan ay galiyaan si xilligan maanta la joogo ay xilliyo badan Andalus kama taariikhdeeda ay aad isu shabahaan bal waxyaalihii islaamku uu kaga soo qabtay maraaxisha aad ka u liitay dibna iskugu daba qabatay kaga soo qabtayna burburkii iyo dib u dhacii aqooneed iyo kii military iyo kii wacyi iyo garaad waxyaalihii keenay. Andalus magacaas marka ay taariikhiyahan ku diraaseynayaan ama ay taxliilinayaan waxay u celiyaan qabaa'il deegaanka dhulka Scandinavian-ka imka loo yaqaano oo ka soo guuray laguna magacaabi jiray Wandaal ama Fandaal. markii dambe macmuruur zaman waqtigii markuu isriixay Fandalesia ayaa dhulka lagu magac daray. markuu waqtigu sii durkayna waxay isu bedeshay Andalus magacu isagoo ka imanaya qabaa'isha aynu markaa hore Fandaal ama Wandaal magacooda la oran jiray. xilligan imka la joogo Isbaanishka iyo Portugiiska labada dal ee isku darkooda ayaa bilaadul Andalus la isku oran jiray. qiyaas ahaan waa dhul ku fadhiya 600,000 kilomitir. in Europe waliba siiba ahaan dhulka ka agdhow Andalus qaab nololeedkeeda aqooneed iyo dhaqaale iyo garaad iyo wacyi wuxuu aad ugu shabahay ama la mid ah Yurubta inteeda kale oo dib u dhac aqooneed mid dhaqaale iyo mid bulsheed intaba runtii waa ku jireen. sidaas oo ay tay islaamku isaguna wuxuu ku jiray xilliyadii oo ku sii siqaayay waxa weeye waqti isdihaar ama xilliyadii horumarkeeda ay taagnaayeen halkii ugu mudnayd. waxa la isweydiin karaa bilaadul Andalus maxaa keenay markii ay mareysay waqtigan la furtay oo asaynu insha Allah ka dhawaajin doono 290 hijriyada ilaa sanadii dhowrka ee ka horeeyay loo diyaar garoobay maxaa keenay muslimiintu inay ku fakiraan ama ay maskaxdooda iyo maankooda ay ku soo dhacdo inay dhulka ka war doonaan. sida ay taariikhyahanadu sheegayaan waxa la isku raacsan yahay muslimiintu xilligii ka horeysay fatradaas ama sanadadaas in muslimiintu ay soo furteen gabi ahaan dhulkii la oran jiray Shimaal Afriqi ama waqooyiga Afrika oo dalalkan Liibiya, Morocco, Jazaa'ir dalalka marka la isku wada daro la isku oran jiray. sidaas oo ay tay laba choice ama laba khiyaar ayaa hor yaalla muslimiinta oo kala ahaa inay waqooyi u siqaan oo u sii durkaan oo ay ka gudbaan madyaqa ama biyo mareenka loo yaqaano Jabal Tariq marka dambe loo bixin doono amaba ay xaggan iyo Sahara al-Kubra saxaraha weyn
ay koonfur ahaan u soo leexdaan oo halka islaamka iyo dadka ku nool islaamka soo gaarsiiyaan. haddaad juqraafi ahaan u qiimeysid labada dhul waxa ku soo baxaysa in Sahraa al-Kubra haba dhul ballaadhnaadee laakiin dadka ku nooli aanay sii badnayn. waa dhul aad u baahsan oo aad u ballaadhan laakiin dadka ku nooli aanay tiro badnayn. sidaas oo ay tay hogaamiyihii islaamka ee la oran jiray Uqba bin Naafic ayaa taariikhyahanku sida sheegayaan ayaa ahaa cidii ugu horeysay islaamka dalka gaarsiisay. waliba taariikh ahaan 22 hijriyada ayuu wuxuu ahaa dadkii waxa weeye khilaafooyinkii muslimiinta xilligii ay jireen futuuxaadka islaamiga ah u horseeday. sidaas oo ay tay waxa la sheegaa islaamku muddada aadka u dheereeyay ilaa 20 hijriyada ilaa 9 hijriyada u dhaxaysay inaanu islaamku ku saldhigin ama aanu ku fadhiisan ama aanu ku sugmin dhulkaas loo yaqaan Shimaal al-Afriqi. laba sababood baa loo celiyaa inta u badan oo ah waa marka koobaad iyada oo dadkii furanayay dhulkaas markii hore aanay waqti badan siin si talaabo ama muddo dheer qaadatayna aanay ugu sugnaanin oo aanay tadriijiyan u furan oo noocan ma si waqti ahaan markay dhulka la isu eego tanaasubkooda aanu tanaasub islix aanu noqonayn. sababta labaad ee loo celiyaa ayaa waxay ahayd dadkan barbarka ama Amaziiqa loo yaqaan ee dhulka u badnaa furashadaas aan waqtiga badan aan qaadan iyada oo loo eegayo waxay keentay in aan islaamka aad u dhugan waqti badanna aanay waxa weeye u helin inay diinta islaamka bartaan. waana ta keentay markii dambe in Uqba bin Naafic si qudhiisa waxa weeye ay shirqoolaan marka dhulkoodii uu hore u galay in waxa weeye ay shirqooleen ay isaga dileen. sida ay taariikhdu xusayso hogaamiyihii Muusa bin Nusayr oo ka farcamay Nusayr bin Abdurrahman bin Yazid oo ahaa runtii hogaamiye aad u qiimo badan alla ka cabsi badan leh saxaabigii fadliga badnaa ee Muawiya bin Abi Sufyaan runtii la soo shaqeeyay. Muusa hogaamiyihii la oran jiray Muusa bin Nusayr isagoo ka faa'iideysanay labadii qodob ee sababka u ahaa inaanay ku guuleysan Uqba bin Naafic inuu gacanta ku wada dhigo ama islaamka si qoto dheer u wada gaarsiiyo dhulkii Shimaal al-Afriqi ayaa waxa uu sameeyay inuu si tadriijiyan ama step ah ugu fidiyo islaamka. waxaan oran karnaa waxay ku qaadatay muddo 6 sano 7 sano inuu dhulka Shimaal al-Afriqi gacanta ku dhigo oo la yiraahdo dhowr jeer diinta islaamka ka noqdeen. saas oo ay tay qodobadaas uu aad soo uga faa'iideysanay daraasad fiican ku sameeyay ayaa qodobka ugu horeeyay ee waqti fiican u galiyay ayaa waxay ahayd qabaa'ishii Amaziiqa ama la oran jiray barbarka inuu marka hore isku dayo in uu islaamka si qoto dheer u fahmaan si wacan macnihiisa ay u dhadhamiyaan. waa qodobka labaad waxaan ka baaraandagay ama uu ka hortagay in dhabar jabin ku sameeyaan oo si tuulo magaalo markuu qabsado waxa weeye diinta islaamka ay si wacan u bari jiray waanu fahansiin jiray macnaha iyo qiimaha diinta islaamka xambaarsantay. waxa uu juhdi badan u galay runtii in uu taabiciintii xataa dhulka islaamka ahaa ee baxsanaa islaam gacanta ku hayay inuu ka keeno si diinta islaamka ay si fiican u dhadhamiyaan. Muusa bin Nusayr xaqiiqatan marka taariikhdiisa si fiican maraajicada taariikhda loogu noqdo waxa ku soo baxaysa hogaamiye aragti dheer xinka siyaasiya lahaa si fiican u dareensanaa risaalada iyo wax weeye macnaha iyo qiimaha ay leedahay risaalada uu xambaarsan yahay. waxa uu ka tafiirmay baa leeyahay hooyo iyo aabo wacan oo ku muujinaysa runtii tarbiyadan shakhsiyadiisa ka muuqanaysa waqti badan ku soo bixiyay. aabihii Nusayr bin Abdurrahman bin Yazid wuxuu la soo shaqeeyay saxaabigii qiimaha badnaa ee Muawiya bin Abi Sufyaan waqti badanna uu la soo qaatay tarbiyad fiicanna waa siiyay. Muusa bin Nusayr marka uu gacanta si fiican ugu dhigay dhulkii Shimaal Afriqi la oran jiray ididila fiican ay u muuqatay ayaa waxa uu ka fikiray qaabkii uu Andalus u furan lahaa. hase ahaatee waxa uu soo baxday tiraba dhowr caqabadood oo ka hortaagan inuu dhulka Andalus si fudud ama si macquul ah u furto. waxa kamid ahayd qodobka koobaad oo ahaa in ciidankii uu kala yimid dhulka islaamka ay fogaa ama dhulkii khilaafadii waxa weeye Amawiyiintu uu ka dhisnay Dimashq iyo Shaam inay tiro yaryiin marka la eego. qodobka xoojin kara ee ama badiilka u noqon kara ciidanka tirada yar waxa uu noqon kara isaga oo ciidan ka qorta ama ciidan ka howlgaliya dhulkii uu furtay. qodobkaas xilli hore ayaa runtii waxa weeye dareemay waanu ka howlgalay sidaynu arki doonana kumanaanka ciidanka Andalus furan doona xataa hogaamiyaashooda Tariq bin Ziyad Tarif bin Malik waxay ahaayeen ciidan ka soo jeeda Amaziiq ama barbar. qodobka labaad ee caqabada ku ahaa waxa weeye uu xalinteeda xilli hore waxa weeye qaashatay ama uga deegaroobay waxay ahayd in dhulkan Andalus la yiraahdo uu yahay dhul aan islaamku
aanay hore u diraasan ama hore aanay u tagin qodobkaas mudday ku qaadatay xaqiiqatan in wax weeye xalli in Muusa bin Nusayr hase ahaatee waxa ugu muhiimsan qodobkii ama qaraarkiisa uu ku qaatay in uu Tariif bin Malik 500 oo nin oo ciidanka Amaziiq u badan inay u diraan waxa weeye dhulka Andalus 400 oo nin oo waxa weeye lugaynaya iyo 100 nin oo fardafuula waxay u amba bixin dhulka Andalus sanadkii 19 markuu maray hijriyada siiba ahaan bishii Ramadaan waxa uu sida taariikhiyan ku sheegayaan qanaa'im badan way soo indheeyeen dhulkii waliba qaybta koonfureed ee ciidanka islaamka ah lagu daadajin doono ama ay ku horreyn doonaan marka furashada rasmiga ah ay bilaabato waxa inta dheer in Muusa bin Nusayr uu ka fikiray ciidanka islaamka ah waxa u dhaxeeya madiq ama biyo mareen markii dambe Jabal Tariq loo bixiyay dhumuc ahaan wuxuu leeyahay 13 kilomitir ciidanka islaamka wuxuu u baahan doonaa waxa weeye dooniyo iyo maraakiib ay 13 kilomitir ku maraan ama ay kaga gudbaan si dhinaca kale ee Andalus ay u gudbaan sanadkii 780 ilaa 88 jiraysa taariikhiyan ku sheegayaan waxa uu bilaabay in waxa weeye tiraba dhowr dekadood in uu waxa weeye ka dhiso maraakiib ciidanka islaamka bixri ka maalin ay ku hawlgali karaan qodobka afraad ee caqabadaha ugu muhiimsan waxa kamid ahaa magaaladii xeebeedka ahay magaalo xeebeedii Sabta la oran jiray oo nin Kristaana oo gacanta ku hayay oo maamuli jiray oo dhifeesyadu ay aad u adkaa islaamkana runtii ku adkaatay inay furtaan in waxa weeye in badan ka fikiray qaabkii uu furan lahaa waliba waxa u dhawaa Tariq bin Ziyad magaalo xeebeed kale oo uu haystay iyagoo islaamku ku guda jira ama taladii celcelinaya qaabka ay u furan lahaayeen ayaa sida taariikhdu sheegayso waxa uu soo bandhigay ninkii haystay magaaladaas Sabta la oran jiray oo nin Kristaan ahaa in islaamka uu heshiis la galo markuu arkay dhinac walba islaamka inay ka mareen heshiiskaasina wuxuu dhigayaa qodobka koobaad in islaamku uu ku wareejiyo magaalo xeebeedka Sabta waa number 1 waa numberka labaad in islaamku waxa weeye uu ka caawin doono hadhow dhulka ay ku degi doonaan Andalus maadaama isagoo aqoon fiican uu leeyahay inuu ka caawin doono tilmaanteeda iyo meelaha laga geli karo iyo waxa weeye cid la kaashan kara biri ka maalin marka furashadeeda loo hawlgalo laakiin bil muqaabil sharti isagu wuxuu uga dhigay in boqorkii hore ee Andalus oo qiidsha la oran jiray oo ay saaxiib dhow ahaayeen beerihii uu Andalus ku lahaa oo 3,000 oo beerood lagu qiyaaso in hadhow biri ka maalin marka islaamku ay furtaan isaga ay soo gacan galiyaan sida taariikhdu ay sheegayso dhulkan Andalus loo yaqaan waxa maamuli jiray اللهم صل على محمد waxa maamuli jiray madaxweyne la oran jiray Qiidsha waxa afgambiyay nin ciidankiisa kamid ah la oran jiray Ludriq oo isku may fiicnaan markii dambe xilkood waa xumaaday boqorkan haystay ama hogaamiyahan Kristaanka haystay Sabta islaamku xaqiiqatan qodobka aad u soo dhaweeyeen waxa ku riixayna wuxuu ahaa iyagu risaalada xambaarsanayeen ahayd in islaamka dhulka gaarsiiyaan ayaa uga muhiimsanayd 3,000 ee beerood ee ku weyn ninkan Kristaanka ee magaalada haysta bayac mushtar ama heshiis aad dhinacooda aad moodid waxa weeye inay aad uga faa'iideen buu ka si fudud u meel mariyeen ama waa u baaskareeyeen heshiiskaas taariikhdii markii ay ahayd 29 hijriyada oo sanad dhameystiran uu ka soo wareegay Tariif bin Malik marka guutadiisii loo diray Andalus waliba ay soo indheeyeen ayaa waxa soo meel waxa weeye Muusa bin Nusayr uu meel mariyay in islaamka ama ciidanka islaamka ee joogay Shimaal Afrika ay ku kiciyaan hawshii furashadan ay bilaabaan intaanu ku dhaqaaqin waxa uu fariin u diray boqorkii la oran jiray islaamka ee Waliid bin Abdul Malik uu ku soo jawaab celiyay waxaana uu ku yiri marka hore ciidanka islaamka ha wada gelin ee waxa guuto u dir dhulkana iska hubi isaga oo uu iskanaya in dhulka ka horeeya uu badiyay aan la ogan waxa ka dambeeya waxa uu ugu jawaab celiyay Muusa bin Nusayr in 13 kilomitir dhul aad u yar inuu yahay biyo mareen aad u kooban inuu yahay xagga shisheecida ka taagana ishaacadiga lagu arki karo markii ay halka mareysay ayaa Muusa bin Nusayr ciidankiisii waxa uu u xil saaray hogaamiyihii la oran jiray Tariq bin Ziyad sida taariikhda ku xusan wuxuu ahaa Amaziiq ama barbar qabaasha la oran jiray buu ka soo jeeday nin hogaamintiisu ay aad u heersaraysan buu ahaa la kacabsigiisu uu aad u wacayay buu ahaa nin karti badan qaabka xeeladaha dagaalka aqoon dheer iyo la ayuu ahaa badii waa ka soo gudbeen cidii koobada ay fool isu muwaajahayaan waxay ahayd guutada qaybta koonfureed boqorkii Ludriq la oran jiray ee Isbaanishka maamuli jiray ama Andalus la oran jiray ciidankii uu joogay buu ahaa
qaab aad u dhib yar ayaa ay ugu guuleysteen 7,000 oo ciidan ayuu watay Tariq bin Ziyad hore markay ugu siqeen guutadii koonfureed ninkii haystay fariin buu u diray boqorkii Isbaanishka waxaana uu ku wari naga soo gaad dad baan oo aanan garanayn inay ahlu sama ama ahlu dhulka inay ka yimaadeen ama cirka inay ka yimaadeen uu iska dhayalsaday boqorkii Ludriq loo oran jiray sababtoo ah taariikhda xilligaas waxa ay aad loo yaqaanay inay soo duulimaad tagaan dad daneynaya dhul hanti ama magac hase ahaatee dad ay u muuqato inay fariin gaarsiiyaan oo marka ay foolka fool dagaalka isku yimaado su'aasha ama xeerka ugu horeeya sharta ugu horeeya kugu xirayaan ay tahay in aad diinta soo gashid ama aad jizya bixisid dagaalku laakiin uu u marayo qodobka saddexaad dhul iyo hanti adduunyada haba yaraatee ee heshiiska ama shuruudaha marka hore intaan dagaalka bilaabmay kugu xiray runtii uma ibaran waxa uu soo diray inaan abti uu ahaa waxaanay dagaalka foolka fool iskugu yimaadeen sida oo kale iyagana waa laga guuleystay qodob dhacdada inuu socono ee lagu suntaa inay tahay furashadii dhabta ahayd ee Andalus ayay inaga muhiimsan labada dhacdo ee ay iskaga hor yimaadeen Tariq bin Ziyad iyo ciidamadii ka soo horeeyay Ludriq markii laba jeeraba ciidankii la jabiyay Ludriq ayaa waxa uu dareemay isagoo jooga Duleydel oo markaa uu ahayd magaalo madax dhulkii Andalus isku oran jiray ayaa uu soo diyaar garoobay si cudadiisii cataadkiisii waxa weeye hubkiisii iyo ciidankiisii uu isku soo dabaribtay waxa uu soo urursaday taariikhyahanku sheegaan 100,000 oo ciidan ah Tariq bin Ziyad isagu wuxuu wataa 7,000 oo ciidan dadkii ka horeeyay ee indhaha uu ahaa ciidankiisa markay soo arkeen 100,000 oo ciidan la soo socdo Ludriq waxay fariin u direen Musa bin Nusayr oo qayrawaan jooga oo shimaal Afriqiya magaalo madax u ahayd xilliga ayada waxa uu ku soo kaabay ama uu ku soo caawiyay Musa bin Nusayr 5,000 oo ciidan oo uu hogaaminayay Tariq bin Malik oo hore uga soo dhawaajinay inuu guutadii ugu horeysay Andalus muslimiinta ka timaada inuu hogaaminayay 12,000 oo ciidan ayaa waxay ka hor yimaadeen 100,000 oo ciidan waad garan kartaa isbarbar dhig ahaan su'aalaha uu qofka maankiisa iyo maskaxdiisa marka uu la kaashado isweydiin kara ayaa waxay tahay 12,000 oo ciidan sidee 100,000 oo ciidan uga hor yimaadaan marka laga tago way guuleysan karaan ama guuleysan karaan go'aanka ka hor imaanshiyaha ah iyo waajihiddu waxay marar badan u muuqanaysaa mid aan maangal iyo macquul midna aan ahayn hase ahaatee waa taariikh dhacday in badanna taariikhda islaamka cidii dhugasho u leh ay in badan ku arki karto waxa la iskaga hor yimi ama dhacdadaas waxa loo bixiyay Wadi Barbaad dhulka doorashadiisa iyo qaabeyntiisa waxa iska lahaa Tariq bin Ziyad oo wuxuu doortay runtii dhul aad u istiraatiiji ah oo dhinacyada ay ka xigaan buuro iyo biyo xidheen waxaanu dhinacii uu islaha wal kaaga soo wareegi karaa ama dhabar jabin bal kaaga sameyn kara Tariq bin Malik oo 500 ciidan wata ayuu iska dhigay dagaalka waxa la iskaga hor yimi Ramadaan markii 28 ahayd dagaalku wuxuu socday 8 maalmood oo isu soo wareega maalintii Axad ilaa maalintii Axadeeda kale halka iyada ah waxa muslimiinta kaga baxay ama ku shahiiday 3,000 oo ciidan 3,000 marka laga jar 12,000 oo ciidan ayaa xaasil u ahayd boqolkii kun ee ciidanka Ludriq watay sida la sheegay taariikhdu ay xusto waxa uu la yimi xadhko badan oo aad u fara badan marka la sababeynay xadhkahaasi waxa ugu talagalay waxa la sheegaa in uu aaminsanaa in muslimiinta bari ka maalin marka filxadkoodu ay kala yaacaan inuu soo qabqabto xadhkahana ku xidho sababtoo ah runtii daraasay dhugasho hore uma lahayn cid ay yihiin islaamka iyo waxay xambaarsan iyo waxa dabada ka riixaya ee ku kalifeen ku sugmaan marka dagaalada ama la iskaga hor yimaado foolka fool munaasabaadka noocan oo kale ah 28 Ramadaan dagaalkii wuxuu dhamaaday Shawaal 6deedii halka iyada aguushu si dhib yar oo waxa weeye Ilaahay uu ku guuleeyay muslimiinta ay guusha ku raacday marka la isu soo geeyo waxa lagu tilmaami karaa Wadi Barbaad dhacdadaas inay dhacdadii furaha u ahayd si rasmiina sababtay in dhulka Andalus oo islaamku uu gaaro waxaynu ku soo ururinaynaa taariikhda Andalus waa barbilow ay Wadi Barbaad u noqonaysaa laakiin 8 xiqbo 800 sano waliba jarjarka ah waa xilli u baahan dhugasho badan diraaso badan in waliba hogaamiyaashii halyeeyada islaamka waxa weeye waqti badan la siiyo si fiican loo diraaseeyo la istul taago waqti badan la galiyo oo lagu bedesho dad badan oo imika loo yaqaan nujuum ama halyeeyo oo marka dadka loo eego runtii dad maran u noqonaya
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.